بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. waxaan mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala. ninkan aad arkaysan garabkayga taagan waa ninkii shalay nimankii qawaariidta ahayd oo ka tirsanayay muddo wax badan oo lasoo shaqeeyey shaqo kadib hadda wuxuu noo imaaday asigoo nimankii gadoodka ah dhibaato iyo maaragta baadilkii iyo waxyaabihii oo xaqdarrada oo dadka lagu hayay inuu ogaaday marxabaabinta ay dadka marxabaabinayeen inay soo fashilantay oo sida hadda arkaysaan waa nin hore nimankaas uu soo shaqeeyey haddana ilaahay wuxuu waafajiyey inay xaqdarradii oo muslimka ay ku hayeen inuu ka waantoobay oo ka imaaday hortiisna waa laga imaaday gadaashiisna in laga imaan doono rajaynayna cid kastoo nimanka qawaariidta la joogto oo dhalinyaro ah shalay ay qaldeen oo la marhabaabiyey waxaan leeyahay shalay baaq cod dheer iyo cod gaaban uu sheegay birigana cod dheer iyo cod gaaban uu sheegaa walaalkiin ninkan hadda yani garabkayga taagan soo isu soo dhiibay si lamid ah cid kastoo nimankaas ay qaldeen marhabaabiyeen ha ka imaada baadilka dadka shacabka lagu haya waa wad aragteen oo xaqdarrada hooyooyin dumar masaakiin xaqoodii inay ku tuntaan oo dhiigooda ay banaystaan nimankan qawaariidta waa la ogaaday dhaliirtii mara habaabiyeenna qaarkeed waa kuwana hawaa imaadeen wixii kala soo kulmi asigaan wax ka weydiinaynaa 2 sano oo bil dhiman aan shaqeynay 2 sano bil iyo sanad iyo 12 bilood marka shaqadii waan soo tagay kulli waxaan ugu soo tagay waxaan rayahan ku arkay moogtahay marka waan nimid magacayda waa diibaan aamingiisi marka sababtoo qof kastoo mar maskaxda ay si u luntani oo mar xagga kasab qadooga waxaan macnaha u sheegi lahay in si waxay buuxda ay ugu soo baxaan dowladda cabis ay u gudasay marka inay iskaga soo tagaan dadkii maskaxda laga dhumiyay ay iska soo tagaan dowladda ay dhaqsi u soo gaaraan marka dhibaatooyinka lagu hayo waa aragteen shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed meel walba marka ay joogaan marka waxaan leeyahay si dhabbe dowladda loo soo maciinsado